الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي qaaliga kusoo dhawaada janalkiina maasha allah. halkaa maanta waxaan kusoo sameysana keegeena ciid mubaarak kullu caam wa antum bikheer maasha allah. hadda nala daawada sidaan u hagaajisaneyna keegeena walaalihii qaaliga maasha allah. waa idinka soo daahay inaa idin dhaho ciid mubaarak. walaalihayga iga raali noqdo, mashquul la iska noqday, alxamdulilah. hadda ilaahay nabada nagu soo kala celiyey. marka hadda waxaan kusoo shubanay 5 xabo oo ukun ah maasha allah. nala daawada sidaan u hagaajisanay keegeena maasha allah. inaba caadi ma ahan. 5 xabo oo ukun ah, 1 koob oo sokor shiidan waaye. koobkaasaan isticmaalaya oo ujeediin maasha allah. haddana sokorteena iyo ukunteena aan si fiican isku shiidaya. nala daawada maasha allah. inaba caadi ma ahan. waa ujeediin walaalihii qaaliga maasha allah. ukunteena iyo sokorteena si fiican isku garaaceyna. maxaa rabnaa in ukunta ay si fiican u garaacno oo maasha allah isku noqdaan rabnaa. markaas keegaaga maasha allah kugu soo baxaya. nala socda walaalihii qaaliga. waa kana ujeediin ukunteena saas usoo garaacnay. ukuntii iyo sokortii bes waaye maasha allah, wax kale kuma soo darin. haddana waxaan ku darsanaa 1 qaando iyo xoogaa yar oo baking powder ah. 1 qaando iyo bar baking powder ah. iyo waxaan kale kusoo darsanaa 1 qaando oo vanilla ah maasha allah. intaas bisaan ku dareena. nala socda walaalihii qaaliga ah. haddana intii markaan kusoo darnay haddana si fiican intii ugu garaaceynaa maasha allah. waa ujeediin ukunteena iyo sokorteena iyo baking powderkii wixii markaa isku soo garaacnay iyo vanilihii. waa ujeediin maasha allah sida cream camal oo noqday. si fiican oo isku soo garaacnay maasha allah. haddana waxaan ku shubnay koob caano ah. koob caanahan ku shubnay walaalihii qaaliga ah. nala socda. haddana burkaan kusoo darsaneynaa. hadda burkeena 3 koob isticmaaleynaa, 2 koob iyo bar. laakiin hadda waxaan kusoo shubnay 1 koob. 1 koob tartiib ugu soo shubaneynaa burka. markaan ku shubaneynaa tartiib ugu soo shubaneynaa. nala socda. hadda 1 koob buraan kusoo shubanay walaalihii qaaliga maasha allah. haddana koobkeena labaad waaye. tartiib aan ugu soo shubaynaa. hal markuu wada gadinayna horna waa ka qasayna, horna waa kusoo shubaynaa. nala socda maasha allah. keegaanidii waxaan rabay maalintii ciida maalinta ka horeysa inaan soo geliyo, laakiin ka raali noqdo. waa iskuma mashquulay maasha allah, dhib ma lahan. isla maalintaasaan hagaajiyey, isla maalintaasaan rabay inaan haddana soo geliyo, laakiin way ii noqon weyse. dhib ma lahan. maanta idinla soo wadaagay fideogaanayti. waa ujeediin walaalihii qaaliga. hadda bur kale kuma soo dareeno. 2 koob iyo bar bur bes la kusoo darnay. si fiican inaa u garaacdo. kuskus ina lahaado mala rabo burka maasha allah. waa ujeediin waxaa soo qaatay 2 baaquli kale aan ku kala shubtay. 1 baaquli waxaan kusoo maraba kalar, laakiin hal mar ma rabi inaa baaquli oo foornada aan gelinayo aan ku kariyo. waxaan rabaa 3 qayb. si 3 qayb aan isku kor saaray inay qayb ahaan aan ugu sameeyo maasha allah. nala socda walaalihii qaaliga ah. haddana inta waxaan kusoo shubaneynaa kalarkeena maasha allah. kalarka mid aan kalar kusoo shubaynaa. nala socda. kalarkaan isticmaalaya waa gaduud, laakiin gaduudka kalarkaan isticmaalaya gaduud waaye, laakiin muxuu isku bedelaa wax yar marka oo
aan ku shubayo waxaa isku bedelayaa binka isku bedelayaa. Hadda midka cadaanka marka hore foornada gashanaya ujeediin aluminium soo saartay. Aluminium fudeed waa hadhow tartiibkeela ugu bixinaya wax dhibaadan ma jirto maasha Allah. hataa baaquliga hadaa saliid amarsid wax ku dhibaa ma jirto, laakiin aluminiumka iga fudud ani maasha Allah. ujeediin markay xoogaa yar qaboobto markaasaad ka fujinaysaa tartiibaan u fujinaysaa, laakiin ayadoo kuleel ah ha ka fujinin haddii kale way kala jabaysaa keega maasha Allah. Waatana qaybteena koowaad hadda foornada kasoo baxsanay maasha Allah. qaybta cadaanka kaliya waaye hadda ujeediin kor iyo hoos gaduud oo noogu soo baxday maasha Allah. sidaasaa la rabaa inay noogu soo baxdo maasha Allah. korkiisana waa ujeediin maasha Allah gaduud waaye. haddana waxaan ku darsanaynaa kan midka aan kalarka aan ku darsanaa idin sheegayo waaye waa food color waaye. kalarka oo cuntada loo isticmaalo budada waaye. midka keega hadaa haysta hataa biyaha oo isticmaali kartaa. marka wax yar ku dartid oo ujeediin binka camal oo noqonaya. haddana asaan foornada gashanaa maasha Allah. waa kaasa walaaleyga qaaliga. haddana foornadan gashanayna markay diyaar noo soo noqoto aan isku soo noqon insha Allah. saddexdeena keeg midka kale nooca kale waxaan ka dhiganaynaa cad le waaye sida markii koo aan soo sameynaa camal la soo sameynaa nala socdo. haddana waxaan hagaajisanaynaa whip cream keena maasha Allah. whip cream kaanayti sokor oo wata vanilla oo wata caano bisa lagu garaacaya aad u fudud yahay maasha Allah. halkii xabana 2 baakada ku jirta, laakiin ani labadoodba waan isticmaalayaa maasha Allah. waa ujeediin walaaley qaaliga baaquligan ku garaacan lahaa waaye maasha Allah. budada whip creamka kulli waan kusoo shubayaa 4 xabo waan kusoo shubay. haddana waxaan ku darsanaynaa 1 koob caano ku darsan 2 koob caano halkii baakad 1 koob caano u isticmaalaysa fuulka baakadka labada baakad oo riis ku jirto marka 1 xab aad irbta inaad ka isticmaashid half koob caano qaboob u isticmaalaysa. hadda 2 koob caano qaboob aan ku soo shubtay walaaley qaaliga maasha Allah. waa kana ujeediin haddana si fiican isku garaacaya ilaa aan creamka rabna ka soo baxo. waa ujeediin creamka rabna oo noo noqday maasha Allah. si fiican oo soo baxay. haddana wax yar creamki aan marsanaya saxankan saaran lahaa waaye wax yar cream aan soo marsaday maasha Allah. hadda keegeena waa kana. hadda kor waxaan ka marinaa waxay sokor iyo biyo aan isku qasay aan kor ka marinaya hadhow sida soft maasha Allah noogu noqdo. haddana waa kana creamkeena haddana kor ka soo marsanaya maasha Allah. keegan caadi ma ahan ila soo tijaabiya insha Allah biidnillah. haddana kii gaduudka ahaa ama binkiga ahaa dhexda ka soo geliyay maasha Allah. waa ujeediin walaaley qaaliga. haddana sokorta iyo biyo waa kana isku soo qasay. haddana asila marmarinaya nala socda brushka saas u soo marmariyay kulli dhamaantiisa inay isgaargaarta la rabaa maasha Allah. haddana creamkii aan soo marsanaynaa nala socda maasha Allah. haddana midkeena saddexaad aan soo saaranay maasha Allah. midkaana waa midka ugu dambeeya waaye. saddexdan qayb aan kusoo sameysanay maasha Allah ujeediin. markana geesaha had soo hagaajisanaya maasha Allah. nala socda walaaley qaaliga ujeediin geesiis kulli aan soo hagaajis. haddana waan sisimayaa creamkan si fiican u marmarinaya geesihii dhan maasha Allah.
inuu kareemka daboola la rabaa. geesi dhan kareemkan kusoo daboola. Masha Allah waa soo habeynaa. Masha Allah waa ujeediin sidaas usoo habeynaa. waa isla soo sisimaa insha Allah biidnillah. waa isku soo noqonaynaa. haddana waa qurxintii waaye. kalarkii gaduudna ana hadday keeg aan marinay aan kusoo qasay whip creamkaanayti kalarkii aan hadday keeg aan kusoo qasay aan kusoo qasay waxyar midkii gaduudna. Masha Allah kareemkeena ku sharaxanaynaa. ujeediin Masha Allah kareemkeena sidan quruxda badan uu soo sharxeynaa. adi birta adi haystid isticmaali kartaa iyo bacda waa bacda kareemka. marka hore sidaan uu soo wareejinaya sidoo hadhow nashqada aan saaraay igu soo muuqato. Masha Allah hadda naqshadaha sidaas aan soo saaraya. waa ujeediin walaalihii qaaliga. Masha Allah caadi maahan. insha Allah biidnillah ila soo tijaabiya waa ka heli doontiin. insha Allah biidnillah. halkan ujeediin sidaan kusoo dhamaystay. Masha Allah chocolate aan maaragtay ima qabanin kaamirahaan naqda. chocolate aan geesaha aan soo dhilaaliyay aan geesaha ugu soo shushuubay. Masha Allah sidaan quruxda badan ugu soo baxay. hadana waa midkaan istixoolaya waa chocolate oo cadaan ee waaye aan kor ugu soo hoolaya. Masha Allah si qurux badan sidaan ugu soo baxo. Masha Allah keegeena sidaan quruxda badan aan soo dhameysanay. hadana dhinac yar maaragtay geesaha uu soo qurxiyay. Masha Allah waa ujeediin keegeena caadi maaha sidaan quruxda badan oo noogu soo baxay. haddana waxaan la arkaynaa dhexdiisa sidoo noogu soo baxay ila arka walaalihii qaaliga. Masha Allah keegeena inaba caadi maahan. macaankiisana lagama sheekeyn karo. cunoogiisa Masha Allah halkan waa ujeediin sidaas usoo jartay. Masha Allah waa kana. Masha Allah dhexdiisana sidaas quruxda badan oo noogu soo baxay. Masha Allah keeg aad u qurux badan aa gurigaaga ku hagaajisan kartaa inaad ka dalbatid ama maaragtay meelaha keeg lagu ka soo gadatid laga soo gadaa inaad ka soo gadatid waa ka maarantaa. Masha Allah keeg inaba caadi ahaan oo aad soft aad u macaan waaye. insha Allah biidnillah ila soo tijaabiya waa ka heli doontiin. haddaa ku cusub tahay fadlan subscribe like share comment. haddaa horna la joogtin hanaga iloobin like-ga share-ka commentiga waa noo dhiirigelin. Masha Allah ujeedin sida soft u yahay oo kala daadanaya. haddana ana idin dhadhaminaa keegeena. Masha Allah keeg inaba caadi ahaan waaye. insha Allah biidnillah ila soo tijaabiya waa ka heli doontiin. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.